guddi hoosaadka ka hortagga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 ee gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay ka howlgalayeen gobolka Togdheer iyadoo ay guddidu si rasmi ah maamulka gobolka Togdheer iyo ka wasaaradda caafimaadka ugu wareejiyeen waxaana ka soo qayb galay madasha ay ku wareejinayeen hawlihii ay u hayeen guddidaasi gobolka Togdheer maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka iyo qaybo ka mid ah xubnaha guddi hoosaadka COVID-19 ee gobolka Togdheer guddidaasi waxay la shaqeynaysay guddidii heer gobol bay la shaqeynaysay wada shaqeyn ayaa ka dhaxaysay aad u fiican waqti badan baynu soo qaadanay shaqo badan baynu soo qabanay runtii waxaan ku guuleysanay anagoo wada jira inaanu gobolka adaalad ambalaasyo aan ugu baaqno ganacsatada iyo dadka maartay qurba joogta ee wadanka gobolka u dhashay afar ambalaas baan ku guuleysanay inaan gobolka keeno ugu horeeyo midaan anagu jeebkayaga maartay anagu aanu ka bixinay oo kii ugu horeeyay hawshan ku bilownay ahaa saddexda kalena waxaa ku deeqay dadkii gobolka ka soo jeeday oo ugu horeeyo taabshiil group maxamed siciid ducaale iyo cali galle group iyo gabdho reer iglanaha ingiriiska ah oo iyaguna xabad ambalaas iyaguna noogu deeqay afarta ambalaas ayaanu ku guuleysanay waxaan kale ku guuleysanay inaan maartay mashiinadii testiga lagu baarayay ay shirkaduhu ay noo keenaan iyo baalkii la oran jiray oxygen-ta oo isagana ay noo keeneen waliba laba xabo ay noo yimaadeen qorana gareen baa noo keentay walana waxa noo keentay daabshiil waxyaalahaas oo dhan waxay noogu qabsoomeen sida wada jira aad bay maartay ugu mahadnaqaynaa dadkii hawsha ka qayb qaatay runtii maanta ayay soo gaadhay inaan hawsha aan wareejino hadaan nahay guddi hoosaadkii lacagtana soo gashay guud ahaan waa $46,750 bay noqotay $46,750 dhammaan juwanadooda iyo kharashadooda waxa jiraan hal mid oo wax kastoo laga iibiyay shirkaas uu jira kaasana ku wareejinayna halkaas qoranta xisaabeedkayga akoonka CBC wax kasta halkaas ku caadi yihiin lacagtan wareejinayno hadaan gudbado lacagtaas wada guur waa $6,006 qofkaas magac sahel qaamay farasaabkii hore Allah naxariistay ayaa maaragtay loo tagay asaguna la qaatay guddigaas kulay dhanka dhakhaatiirta 5 dhakhtar baa ku jira waxaan maaragtay ugu baaqay dadweynaha kulay inay weli taxadaraan adduunka oo ka jira sida aad maqlaysaan Ingiriiska Mareykanka ugu daran meel wanaagsan ayaanu soo gaarsiin oran karaa barnaamijkan wadnay guddi ahaan hawsha ma garanaysay gobolka ama gobolkeena iyo dadweynaheennabana xil baa qof walba gaar uga saaran ma aha inaynu ma garanaysaa ku kala tagnay hawlaha waynu u wada joognaa waxa laali wixii soo kordha insha Allah biidnillaahi kariim waa ka soo qayb qaatay laakiin waxaan isleeyahay guddidaas guddi ka fiican hadday tahay habka wada shaqaynta hadday tahay isbitaalka hadday tahay deegaanka haddii ay tahay khilaaf la'aanta waxaan maleeyaa ballan ay hayeen ilaahay iyaga subxaanahu wa ta'aala wada howleeyo haddaynu iskaashanno oo gacanta la iskaashado inaan wax waxaan ugu mahadnaqaynaa shirkadaha imika halkan laga sheegay ee dahabshiil u horeeyo ee Telesom iyo Ilays runtii qayb lixaad la ka qaatay in maxay hayday ay hawsha inoo hirgasho taga xanuunka COVID-19 runtii guddidaas wax weyn bay inoo qabteen intay joogeen wayna ku mudan yihiin wayna sharaf bay naga mudan yihiin guddidaasu waa guddidii lagu dayan lahaa ee wax qabadka lagu muujin lahaa waxaan gobol ahaan ugu mahadnaqaynaa hawshii ballaadhnayd ee badbaadada dadkeenna ee badbaadada gobolkeenna ahayd ay u kaceen guddidanu ma aha guddi maanta kacday oo u kacday hawshan
waa guddi ka suntan magaalada wax kastoo ku soo kordha maalintii warwarka weyni jiray geela ninna maalinta uu dhalaabu maalaa oo hadhuub u soo qaata ninna maalinta ay adag tahay ayuu ku tabcaa maalintii ay adkayd bay guddida tani isxilqaameen cabdiqani baafa telefishinka Star TV magaalada Burco